xogta naga soo gaaraysa gobolka Gedo ayaa sheegaysa in mas'uul ka tirsan NISA uu kulan la qaatay saraakiil Kenyaan ah. qodobkaasi ayaa idin faahfaahin doona. waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan channelka Mahiya Media Production. kaaliyaha taliyaha NISA Abdullahi Kulane oo ku sugan gobolka Gedo ayaa la sheegay inuu la kulmay saraakiil Kenyaan ah, waxaana uu kula kulmay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo ay ka wada hadleen arrimaha amniga iyo xiisadda ka jirta xuduudda. waxaana sarkaalkan awood badan ku leh NISA la rumaysan yahay inuu hormuud u ahaa howlaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka waday gobolka Gedo. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa jiray qorshe Maraykanka waday oo ku aadanaa sidii ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya geysay Luuq Doolow beled xaawa looga saari lahaa. sidoo kalena waxaa iyagana jirtay ciidamada Jubbaland ee gurmad ahaanta ugu yimid Dhobley iyo Elwaq iyagana dib looga celin lahaa goobahooda. degmooyinka saddexda ah ee ku sugan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa in dib loogu wareejiyo ciidamadii hore u joogay deegaan ahaan ahaa kuwa ka tirsan daraawiishta Jubbaland. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan kala kulantay beesha caalamka oo ku aadan xiisadda ka taagan gobolka Gedo iyo ciidamada ay geysay, taas oo sababtay in Kenya ay dacwad ka gudbiso dowladda federaalka ee Soomaaliya. isku soo wada duub, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeeda jiritaanka maamulka Jubbaland ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe. aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina iyo waqtiga aadna siiseen. waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan channelka ah Mahiya Media Production.